maamulka madaxweynaha dalka Mareykanka waxaad ogeydeen inuu ku guuleystay inuu horta gobol u soo magacaabo waliba madow ah maxkamadda sare Supreme Court. Haddaba dad badan ayaa arrintaas u dabaaldegay. Waa gabadhii ugu horeysay, qofkii ugu horeeyay madow maaha, laakiin waa gabadhii ugu horeysay ee madow ah ee maxkamadaasi ka noqota ergo garsoorka sida ay wararku sheegayaan. Haweeneydan ayaa waxaa la yiraahdaa magaceeda Ketanji Brown Jackson waxaana ay tahay African American ku biiri doonta Supreme Court-ka sagaalka qof ee maxkamadaasi ayay ka mid noqon doonta. Mareykanku waa qaran lagu sifeey karo hal eray ayuu yiri ama hal eray America lagu sifeey karo ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden oo aqalka cad markaasi ay barbar taagneed gabadhan wuxuu yiri waxaan kaloo dhihi karaa haddaan eraygaas sifeeyo oo aan macna u bedelo wax walba waa ka suuragal ayuu yiri oo guul buu ka wada qofka inuu ku gaari karo. Haweeneydan waxay ku guuleysatay si dirqi ah ayaa lagu ansixiyay 53 ayaa ansixiyay boqolka oday ee aqalka sanadka oo ay u baahaned inay ansixiyaan waayo aad baa looga horyimid laakiin waxa markii dambe u heeriyay laba gabdhood oo senator ah gabadha Susan Collins iyo Lisa Murkowski gobolada Maine iyo gobolka la yiraahdo Alaska kasoo kala jeeda iyo Mitt Romney ee gobolka Utah saddexdaas oo xisbiga Republican ka tirsan iyo kontonka xubnood ee kale ee ayagu ka tirsan markaasi xisbigeeda ama xisbiga madaxweynuhu yahay dabcan haweeneydan waxay hore u sheegtay inay dhaxad noqon doonto oo maxkamadda markay tahay arrimeedu dhaxad noqon doona laakiin weerar aad u adag ayaa lagu qaaday madaxweynaha ayaa cambaareeyay kuwa uu ku tilmaamay in suxun loo dhaqmay gabadha markii la ansixinayay wuxuuna sheegay gabi hanteedba inaan wax la aqbali karayn waa la abuse gareeyay isla markaana hadallo cadhale oo fool xun baa lagu la kacay waxaana lagu sameeyay ayuu yiri iyadoo lagu larayo arrimo xun iyo waliba eedeymo aysan jirin laakiin way ka fakatay ayuu dad badan hodabo dhalinyaro ah gaar ahaan dadka sharciga baranaya iyo qaanuunka ee dalka Mareykanka ayaa u dabaaldegay arrintaasi waxaana ku tilmaameen inay tani suuragal ka tahay Mareykanka in maxkamadda sare iska daa kaliya inuu nin madow gale hatta gobol madow ay gali karto si adraadeedna waxay u egtahay markii ugu horeysay in madowgu ay laamaha sarsare ee dalka Mareykanka ay wada galeen mar ay ahaayeen dadka la doreeyay in sida xun loo gali jiray shirkadda loo yaqaan Hollywoodna ugu dambeyntii actorka loo yaqaan Will Smith waxay ku soo rogtay in 10 sanadood laga mamnuucay Oscar-ka 10 bandhig ama 10 markaasi wax loo yaqaano shahaado qaadasho iyo bilad sharafeedo ayuusan ka qayb gali doonin kadib markii uu la yimid gacanka hadal aan qiil lahayn Chris Rockna weerar ku qaaday intii lagu guda jiray ayaa lagu yiri markaas xafladda 94aad ee akademiyadda abaalmarinta ayaa lagu yiri warka qoraalka ay soo saartay go'aankan waxa uu ka yimid markaas waaxda dhinaca boardka loo yaqaano taasoo ugu dambeyntii ka gaadhay in muddo 10 sanadood Mr Smith uusan ka maqan arrintaas ninkaas ayaa dunida soo jiitay kadib markii iyadoo TV-ga toos loo daawanayo uu dhag iyo dhaban fujiyay ninkii xiriirinayay kadib markii uu kaftana ku soo qaaday xaaskiisa hagaag dabashana qiimaha leh madaxweynaha dalkaasi Faransiiska ayaa sheegay inuusan mar walba ku jaacsanayn markuu telefoon kula hadlayo Mr Putin waan madaxweynaha kaliya reer Yurub ee telefoonada u diraa reer galbeedka maadaama uu ka tuugo mar walba inuu xabada joojiyo markii ugu horeysay ayuu ka hadlay waxa uu dareemo markii isaga Putin wada hadlayeen wuxuu sheegay inuu ciriiri dareemo aadna ay u dhibaso laakiin wuxuu sheegay inuu wax kala haysanin oo aan ahayn in la hadlo ninkaasna garka la qabto way xabatoojin ayaan u baahanahay laakiin markasta oo Putin la hadlayo waxaan dareemaa ayuu yaxyax iyo waliba culays aad u weyn arrinta ayaa imaanaysa iyadoo shirkadda dhinaca hilaadinta shidaalka iyo waliba arrimaha tabarta ee loo yaqaan Fitch Ratings ay ku dhawaaqday in dawladaha reer Yurub afka ciidda darsan doonaan haddii ay isku dayaan inay waqtigan dhow ay joojiyaan shidaalka dalka Ruushka 60% shidaalkaas ayay ku tilmaantay inay noqon doonto tan ay ka helaan dalalka taasoo ka dhigan ayay tiri in ka badan 152 cubic meters taasoo ay helaan rubac sanad kasta waxayna ka digtay shirkaddu inay dalalka reer galbeedka gaar ahaan reer Yurub ay noqon doonaan kuwa baaba'ay haddii arrintaas isku dayaan haddaba dawladda dalka Russia waxa ku dhacay dhibaaxadii ugu weyneed iyadoo oo markii ugu horeysay ay u codeeyeen 94 dal oo kamid ah 193 dal ee qaramada midoobay ku jira in laga saaro golaha xubinimada golaha qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka Geneva fadhiya xarunta labaad ee qaramada midoobay baa la yiraahdaa Geneva loo yaqaan sideedaba sida ogtahay xaruntaas waxa jooga guddiga markaasi ama waxa jooga wadamada loo yaqaan runtii wadamada loo yaqaan wadamada xuquuqul insaanka sida daraadeed waxa ay dawladda Mareykanku ay soo abaabushay in dalalka ay ku qanacso badankoodii codku wuxuu dhacay sida 93 dal waxay u codeeyeen in laga saaro dawladda dalkaasi xubinimada golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay 24 way ka soo horjeesteen 58 way ka maqnaadeen sida daraadeed vote-ku u dhacay isla markaana dalkaasi waa laga saaray waxaana dalalka markaas ka maqnaa ay haayeen horta dalalka diiday
marka 94 dal ayagu aqoonsaday markan iska nimaano ayagu aad u badan oo runtii wadalka reer galbeedka iyo ku cagaha ku xadaan laakiin inta ayagu uu kasoo horjeeday baa aad macno sameeyana xoogaa oo inaad ogaato ay tahay waxa kamid ah Algeria, Belarus, Bolivia, Burundi, Central African Republic, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, China, Congo iyo Cuba, Jamhuuriyadda Muraadiga ee Korea waqooyiga Korea dabcan, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Iran, Kazakhstan, Laos, Mali, Nicaragua, Russia iyadoo dabcan codkeeda leh, Syria, Tajikistan, Uzbekistan, Vietnam iyo Zimbabwe. intaas ayaa ka soo horjeestay oo 24 waxaa marka ayaguna meesha u gambiyay dalal ay ka mid tahay ugu muhiimsan yihiin dalalka Angola, Bahrain, Bangladesh, Barbados, please dalka Bhutan, Botswana, Brazil, Brunei, Cape Verde, Cambodia, Cameroon, Egypt, El Salvador, Eswatini, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guyana, India, Indonesia, Iraq, Jordan, Kenya, Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malaysia, Maldives, dalka Mexico, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Saint Kitts iyo Nevis wadamada yar la yiraahdo San Vincent iyo wadamada ay ka mid tahay markaasi Saudi Arabia, Senegal, Singapore, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, Sudan iyo Suriname, Tanzania, Thailand, Tonga iyo Trinidad iyo wadanka la yiraahdo Uganda, United Arab Emirates iyo dalka Tanzania iyo dabcan Yemen ayaa iyaguna kasoo horjeestay kama qanaa oo 58 iyaguna noqonaya inta kale waa codayeen runtii waxa la yaab leh hadaba liiska Soomaaliya dad badan waxay weydiinayaan Soomaaliya kaga jirta waa arin weydiin badan waa confuse Soomaaliya horta markii hore TV Al Jazeera leeyahay kuma soo qorin liiska warbaahin kale oo soo qortayna ma jirtaba laakiin liiska qaramada midoobay markaan ka eegnay meesha qaramada midoobay Soomaaliya waxay ku jirtaa meel trick ah oo aan fahmi waayay runtii to be honest waxa loola jeedo qaybtii saddexda calaamadood meesha ka muuqda midnaba Soomaaliya kuma jirto calaamadu waa calaamad guduud ah oo wadanka ka soo horjeestay calaamadna waa calaamad yellow ah ama jaallo ah oo wadankii maqnaa abstain waa calaamadna waa calaamad yellow oo wadankii u codeeyay saddexdaas liis midna si huban ugu jirto sidoo kale liiskii dhaxyaalka ahaa kuma jirto sidaa daraadeed meel dhexe ay Soomaaliya ku qoranta oo runtii anigu aanan hadeerto aanan garanayn ujeedada halkaas loogu qoray laakiin wararkeena daba ku ogaan doona insha Allah toos baan u xiriiri doonaa waan ogaan doonaa Soomaaliya meesha martay laakiin anigu waxaan ku qiyaasayaa Soomaaliya inay wadamada ka aamusay ay ku jirto amase ku ogolaaday labadaas mid noqonaysa laakiin kulli kama soo horjeesan daawashana qiimaha leh wararka wacala dhinaca dibnaasiyada caalamka dhan Yemenna madaxweyne ku-xigeenka cusub ee golaha loo magacaabay wasiirada golaha wasiirada inta badan madaxweyne ku-xigeenka ayaa gudoomiye dalka Yemen ayaa waxa uu ku dhawaaqay in isaga iyo ururkiisa al-islaax ay la shaqeyn doonaan dawladda isla markaana wuxuu ku dhawaaqay inay nabad ka shaqeyn doonaan Rashaad al-Alimi waxa uu TV u ka jeediyay khudbad uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan isku soo dhaweynta dadka Yemen iyo hirgelinta xabad joojinta dhanka kale qaramada midoobay ayaa dalbatay 80 milyan oo lagu jiido markabka muddada dheer badda cas gaar ahaan duleedka magaalada Xudeyd yaalay 45 jirka markabka tankerka nooca la yaqaan FSO Safar waxa uu dhibaato ku yahay iyada deegaanka iyo cimilada ilaa iyo sanadkii 2015 iyo halkaas ku go'doonsanaa waxaana laga baqayaa in daadashada shidaalkiisa uu cilad aad u weyn u keeno Saudi Arabia ayaa amiirka dalkaasi Amir Mohammed bin Salman wuxuu booqday masjidka barakaysan iyo markaasi xabaasha nabiga naxariis iyo nabadgelyo ee korkiisa hayeelay waxaana uu booqashada halkaas uu ku tagay uu ku soo sameeyay cibaadooyinka la soo sameeyo cimrada iyo siyaarada isagoo oo markii dambana kaga dhawaaqay barnaamij aad u ballaaran masaajidka leeyahay Masjidul Quba oo ah masaajidkii ugu horeeyay ee Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa hayeelay uu dhiso kaasoo ay sida nusuusta ay sheegaysa ahayd meesha hashiis ay fadhiisatay maalintii uu galay magaalada Madiina isagoo markaasi Masjidul Quba ku ayay jiray ayuu Mohammed bin Salman uu sheegay in la ballaari doono masaajidka isla markaana lagu kordhi doono ayuu dhisme aad weyn hadeerto wuxuu masaajidku ka kooban yahay 5,000 oo square meters ayuu ka kooban yahay ama 5,035 markaasi oo wareeg oo mitir ah wuxuuna la sheegay inuu ka dhigi doono 50,000 oo isku wareeg taasoo ka badan ayaa 10 jibaar sida wakaalada wararka Spy ku soo warmayso 66,000 oo qof oo muslimiin ayaa ku tukan kara markiiba waxaana la sheegay inuu lagu daray qorshe loo yaqaan 2030 vision taasoo Mohammed bin Salman uu ku tilmaamay inuu noqdo doono qorshe aad iyo aad u weyn oo wax weyn tari doono sida halka loo dhigay hagaag
madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa la sheegay inuu aaminsan yahay in ciidamada ilaalada kacaanka dalka Iran ay yihiin argagixiso iyada oo hadal ka soo yeeray ay Iran dhawaan ka carootay taliyaha ciidanka qalabka sida kala duwan dalka Mareykanka General Mark Milley oo isagu aqalka Congress-ka ka jawaabayay su'aal ku saabsaneed sida uu arko ciidamada kacaanka lagu dhaato ee dalka Iran ayaa waxa uu sheegay